kulan waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka qaybtan waxaan idinkula wadaagi doonaa xaaladda bariga dhexe oo saaka ah bariga dhexe iyadoo ay duqeymo waaweyn isweydaarsanayaan dowladaha Mareykanka iyo waliba Iiraan xalay waxay la kulantay mid kamid ah weeraradii ugu xooganaa ee ay Mareykanku kala kulanto tan iyo markii la gaaray heshiiska is-afgaradka ah ee lagu soo afjarayo xiisadda dagaal ee u dhaxaysa labada dhinac. Iiraan dhankeedu ma hakan oo waxa ay weeraro culus saakay ka geysanaysaa qaybo ka mid ah dalalka Carabta oo uu saldhigyo ku leeyahay Mareykanku. dagaalka labada dhinac ama xiisadan cusub waxay ku soo aadaysaa xilli madaxda NATO oo ugu horeeya Donald Trump ay ku sugan yihiin magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. Ma laga yaabaa marka Iiraan inay duqeyso magaalada Ankara ee uu ku sugan yahay Donald Trump kana soconayo shirka uu la leeyahay NATO. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka. ku soo dhawaada Runmaal Media haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, haddii aad nala joogteen aad baad u mahadsan tahay. aynu ku bilowno saaka xiisadda bariga dhexe waxa ay maraysaa bariga dhexe iyada oo gobolka uu mar kale galay waxa u eg xiisadii dagaal ee la soo afjaray ee u dhaxaysay Mareykanka iyo waliba Iiraan. Mareykanka ayaa saaka ilaa xalay waxa uu weeraro culculus ka fuliyay koonfurta iyo waliba xeebaha Iiraan. wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo Pentagon wasaaradda difaaca Mareykanka ee loo yaqaan Pentagon ayaa sheegtay in ku dhawaad 80 bartilmaameed oo ku yaala koonfurta iyo xeebaha Iiraan ay weerareen waxayna sal ugu dhigeen weerarka ay Iiraan ku qaadeen sabab la xiriirta inay ku eedeeyeen Iiraan in ay shalay weerartay laba markab oo ganacsi oo marayay marin biyoodka Hormuz inkastoo Iiraan aysan sheegan in ay maraakiibtaasi weerartay. sidii Iiraan lagu bartay Iiraan ma hakan oo markii ay weeraradaasi dhaceen ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay iyaguna in ay jawaab degdeg ah ka bixinayaan mana soo daahin. jawaabta Iiraan waxa ay noqotay inay weeraro culus saaki ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada uu Mareykanku ku leeyahay gobolka bariga dhexe gaar ahaan dalalka Carabta. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in 80 bartilmaameed ama 80 saldhigyo Mareykanku ku leeyahay gobolka bariga dhexe ay saakay weeraro ku qaadeen iyagoo weerar loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. ilaa ay hadda dalal kale soo warinayo in gantaalada Iiraan ay gaareen waxaa ka mid ah dalka Kuwait iyo waliba dalka Bahrain. dowladda waddanka Iiraan ayaa sheegtay in la soo dhaafay xilligii la cabsi gelin jiray ayna jawaab ka bixinayso wax kasta ama weerar kasta oo gardarro ah oo lagu soo qaado. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa la soo warinayaa in ilaa ay hadda aynu idin la hadlayno ay weeraro culus ku qaadayaan ama ka fulinayaan gobolka bariga dhexe gaar ahaan dalalka Carabta. Bahrain iyo Kuwait ayaa la leeyahay maalmihii ugu dambeeyay waxa ay saldhigba u noqdeen gantaalada Iiraan oo inta badan haddii Mareykanku weeraro Iiraan waxa ay weerar ku soo qaadaysa saldhigyada uu ku leeyahay Bahrain iyo Kuwait. sababta waxaa la isleeyahay xiriirka ka dhaxeeya Iiraan iyo waliba dalalkaasi oo aan wanaagsanayn iyo saldhigyada tirabeelka ah ee uu Mareykanku ku leeyahay labadan dal ee xuduud badeedka deriska kala ah dowladda Iiraan. weerarkan sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa xilli maanta la filayo in shir 2 maalmood soconaya uu magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga ay ku yeeshaan madaxda dalalka ku midaysan ee gaashaanbuurta NATO. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku sugan magaalada Ankara halkaasi oo kaga qayb galayo shirka uu la yeelanayo NATO. shirkan sababta ugu weyn ee shirkan loo soo abaabulay ayaana ah in Donald Trump lagu qanciyo inuusan isaga bixin ururka ama gaashaanbuurta NATO sabab la xiriirta in Donald Trump uu dhowr jeer oo hore ku eedeeyay wadamada ku jira gaashaanbuurta NATO gaar ahaan dalalka Europe in aysan ka taageerin dagaalkii uu la galay Iiraan. dabcan marka laga soo tago dalalka kale ee Europe boqortooyada Ingiriiska ayaa la leeyahay waa markii ugu horeysay taariikhdeeda oo ay ka harto dagaal uu Mareykanku ku qaaday dalal ka mid ah kuwa Islaamka. boqortooyada Britain waxa ay Mareykanku la gashay dagaaladii Afghanistan, Iraq iyo dagaalo kale oo dhowr ah iyo xitaa kii Libya laakiin kan waxay uga hakatay ayaa la leeyahay boqortooyada Ingiriiska oo sheegtay in Mareykanku uusan boqortooyada Ingiriiska kala tashan dagaalkii uu ku qaaday Iiraan. sidaas oo ay tahay boqortooyada Ingiriisku waxay sheegtay in dagaal aan lagala tashan aysan diyaar u ahayn inay lagu hala gasho sitaa la mid ah Faransiiska, Jarmalka iyo dhammaan saaxiibada Mareykanka ayaa ku gacan saaray inay ku taageeraan dagaalka uu la galay Iiraan. si kastaba ahaatee Donald Trump waxa lagu eedeeyay in dagaalkan uu min bilow ilaa dhamaad kala tashaday waliba fikradeeda u keenay Benjamin Netanyahu oo hadda si weyn uu khilaaf ugu dhaxeeyo Donald Trump.
benjamin netanyahu 24 saac ee lasoo dhaafay 3 wareysi ayaa waxa uu siiyey warbaahinta ugu afka dheer Mareykanka sida Fox News ee CNN dhammaantoodna waxa uu si isku mid ah ugu dhaliilay qorshaha Donald Trump ee cusub ee ah in dowladda Turkiga laga iibiyo diyaaradaha dagaalka F-35 marka laga soo tago dalalka kale ee Yurub ee gacanta ku haya diyaaradahan Israel waa dalka kaliya Israel marka laga soo tago dalalka kale ee Yurub Israel waxay noqonaysaa dalka kaliya ee gacanta ku haya diyaaradahan dagaal ee F-35 waxayna ku soo aadaysaa xilligan leeyahay waxa laga iibinayaa diyaaradaha Turkiga iyada oo khilaaf culus u dhaxeeyo Turkiga iyo waliba Israel labada dhinac waxay hawada isku marinayeen hadallo adag Netanyahuna waxa uu haatan ku soo aadinayaa Netanyahuna haatan waxa ay noqonaysaa arin Netanyahuna xilligan waxa uu go'aanaya Netanyahu xilligan waxa hadaladiisa ku soo aadinaya iyada oo khilaafka hadallada badan ee Netanyahu ayaa ku soo aadaya xilli xiriirka u dhaxeeya Benjamin Netanyahu iyo Donald Trump uu yahay mid aan wanaagsanayn isla markaana dhowr jeer oo hore Benjamin Netanyahu wuxuu codsaday inuu la kulmo Donald Trump oo kala hadlayo qodobo dhowr ah oo ay ku jirto dabcan in Turkiga laga iibiyo diyaaradaha F-35 taasi oo la sheegay inuu si rasmi ah u gacan saaray Donald Trump oo haatan baqaadacsan sida Benjamin Netanyahu ee u dhaqmayo khilaafka labada nin ayaa waxa uu salka ku hayaa heshiiska lala galiyo dowladda Iran taasi oo ay ku jirtay in Israel ay joojiso weerarada ay ka wado dalka Lebanon oo ay ku beegsanayso meelaha rayidka ah iyo waliba guud ahaanba dalka Lebanon Israel aan dhahe waxay diiday in ay joojiso duqeyb Israel ayaa inta badan ku gacan saartay in Mareykanku uu dalabkiisa Israel ayaa ku gacan saartay in dalabaadkaas Mareykanka uu watay ay fuliso taasi oo keentay baa la leeyahay in labada dhinac ama labadan nin ay hadda yihiin kuwa aan si fiican isku fahansanayn si kastaba ahaatee xaaladda gobolka bariga dhexe hadda waa bariga dhexe Turkiga waxa ka socda wada hadallo NATO ay leeyihiin ma saameyn doona xiisadan Iran haddii laga bartilmaameedsado ama la bartilmaameedsado aaska loo sameynayo hogaamiyaheeda Ayatollah Ali Khamenei oo haatan meydkiisa la geeyay qaybo ka mid ah dalka Ciraaq loona soo celin doono magaalada Mashhad ee dalka Iran haddii la bartilmaameedsado Iran iyaduna ma bartilmaameysan doontaa halka uu ku sugan yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee magaalada Ankara lama oga ilaa hadda mase u badna in Iran ay weerar ku qaadayso marti ku sugan mana u badna haatan in Iran ay diyaar u tahay in ay cid kale isku furto maadaama haddii ay weerar ku qaado gudaha dalka Turkiga iyadoo xitaa beegsanaysa Donald Trump oo kaliya ay taasi ka dhignaan karto in dowladda Turkiga ay weerartay maadaama dhulkeeda uu yahay halka ay ku sugan yihiin madaxdan si kastaba ahaatee wixii warar ee kusoo kordha waan idin soo gudbin doonaa qaybtan intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad nala joogtayna aad baad u mahadsan tahay